maskaxdii iyo awoodii lahayd abuurka argagixisada Soomaaliya waa Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxaan ku nasiixaynaynaa dadkaas jidka Ilaahay ka leexday oo diinta Ilaahay la dagaashay inay ka haraan waxa ay ku jiraan si ay u badbaadaan adduunyo aakhiro. wuxuu ahaa macallin dugsiyada sare ka dhiga juqraafiga iyo carabiga. ma aha hadda jaamacadii waa dugsi sare. 2006 ayay ahayd markii hoggaanka qabtay ururka midowga maxkamadaha islaamka, balse ay ku hoos dugnaayeen ururada Al-Shabaab iyo Xisbul Islaam. waxay noqdeen laba garab oo meel kaliya dhaqaalaha ka wada hela, dagaal toos ahna kula jira dowladii Cabdullaahi Yuusuf. Soomaaliya hadday diyaar u tahay inaan muqaawamayno, annaga diyaar u nahay. haddaysan diyaar u ahayn annaga waxaan goosan cadowgeena la diro. Allahu akbar, Allahu akbar. annaga waxaan goosanay cadowgaas inaan la diro. maalmo kadib wuxuu isku dhiibay kuwii uu Shariifku ku sheegay gaalada, wuxuuna meesha ka saaray fikirkii uu aaminsanaa. marka waxaan aad uga xumahay shabaab iyo alqaacida inay si khaldan u fasireen ay keenaan inay dadkii dhibaato fara badan gaarto. garabyadii xagjirada ahaa ee maxaakiimta ka farcan ee Shariifku uu samaystay waxay saameyn ku yeesheen hanaankii dowladnimo ee ummadda Soomaaliyeed sugayeen. wuxuuna madaxtinimada Soomaaliya hayay 9kii Janaayo 2009 ilaa 10kii Sebtembar 2012. hadda waa Shariifkii dowladii ku horeysay la dagaalamay ayaa iminka madaxweyne noqday. wuxuu keenay intuu xilka hayay 3 ra'iisul wasaare. wuxuu xaraash geliyay badii Soomaaliya oo ilaa hadda dhibkeedu taagan yahay. hadda wuxuu markii afraad u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya. tani waa calaamadaha munaafiqa ee Sheekh Shariif argagixisada aad wadanka keentay ka qabo inta aadan mar kale madaxtinimada u tartamin.